الله ونحرسته أبوان حسن محمد محمود حسن جعيل ayaa maanta aas ay ka qayb galeen wariyaasha Soomaalida bahda fanka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa lagu sameeyay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Abwaanka ayaa lagu aasay qabuuraha Langata ee duleedka magaalada Nairobi iyadoo wariyaashii ka soo qayb galay kamid ahaayeen Cali Muuse Cabdi, Fahad Yaasiin, Maxamed Cusmaan, Xuseen New York iyo wariyaal kale oo caan ah. Wariyaashii qaybihii bulshada ee ka soo qayb galay aaska ayaa wajiyadooda laga dheehan karay murugo ay ka qabaan geerida ku timid Allah u naxariista Abwaan Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Jacayl. waa kuwan qaar ka mid ah wariyaashii iyo fanaaniintii ka qayb galay aaska Allah u naxariista Abwaan Xasan Jacayl oo dareenkooda ka hadlaya. inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. xasan Allah u naxariisto dhamaanteen waan ka marqaati kacnay maanta gurigiisii rasmiga ahaa buu u hoyday intuu uu ka dhigtay oo ay ugu horeyso qoyskii iyo ehelkiina ilaahay sabr ka siiyo annagoo mihnadii iyo bahwadaag aan ahaynoo wariyaashina ilaahay sabr naga siiyo. tiirayaan halka uga dareena walaalkeena xasan oo ku geeriyooday Nairobi oo muddo badan ku jirana dalka Nairobi waxaan leeyahay naxariis ilaahay ha siiyo. xasan horta annaga waxaan ahayn dad walaalo ah oo meel ka soo wada shaqeeyay oo hobalada waa bari ah. nin wuxuu ahaa abwaan ah, nin wuxuu ahaa musician ah, nin wuxuu ahaa kaalin badan ka soo qaatay hobalada waa bari. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ana ku hadlaya magaca ururka Sajaas ee wariyaasha qurbajooga Soomaaliyeed ee wadankan Kenya. ugu horeyntii waxaan tacsi u direynaa qoyskii iyo eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Abwaan Saxafi Xasan Maxamuud Xasan Jacayl. xasan in muddo ah ayuu ku xanuunsanayay wadankan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. wariyaasha walaalihiisa ah intii ay awoodaan iyo ehelkii iyo asxaabtii kaleba waa u qabteen nasiib wanaag laakiin waqtigiisii ayaa dhamaaday. xasan waxaan lagu baryeynaa inuu jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo. runtii waxaan tacsi u dirayaa dhammaan qoyskii qaraabadii iyo eheladii asxaabtii uu ka tagay Abwaan Xasan Maxamed Xasan Jacayl. saad ogtiin ba muddo fara badan ayaa xanuunsanaa oo xanuun fara badan u soo maray kaasoo mararka qaarkood xubnihiisa qaar ka mid la jaray hase yeeshee markii dambe uu soo raanaaday aanu rajo qabnay ayaa u dhintay. taasina waa maalin qoran oo aan qofka bini'aadamkii waxba ka bedeli karin dhinaca daaweeye dhinaca cilmi doono. abwaan saaxiibkeen walaalkeen xasan maxamed maxamuud xasan jacayl muddo 2 sano ah yaa xanuunka diabetic Nairobi uu kula xanuunsanaa 20 sano ka badan uu hayay. laakiin anigu waxaan dhihi karaa maanta saaxiibkeen uma dhimanin daryeel la'aan, uma dhimanin saaxiib la'aan, laakiin wuxuu u dhintay malakamood. waayo wariyaasha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan, madaxda cid kasta gacanayna siisay. xasan wuxuu u geeriyooday xanuunka diabetic-kada oo sonkorta ama macaanka qof walba sidoo u yaqaano. waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan saxaafadda Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed iyo abwaanada Soomaaliyeed. waxaa maanta aan magaalada Nairobi ku aasaynaa naxariis janna ilaahay ha siiye Xasan Maxamed Jacayl oo ahaa abwaan, wariye, fanaan, musician, hal abuure caan ku ah wadankeena Soomaaliya iyo adduunka intiisa kaleba. runtii waa geeri naxdin leh. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. كل نفس ذائقة الموت نفول بوي دمي دونتها جيريدا. الله نحريست ما توحى نجا بحي ولكن قال جا حسن جعيل. runtii xasan jacayl fanaaniinta kaliya muusan ka bixin bahda saxaafadda iyo fanaaniinta dhamaantood oo ka wada baxay. runtii xasan jacayl waa nin aan aad u garanayo oo muddo meediyaha iyo TV-ga Horn Africa aynu ka soo wada shaqeynay. runtii xasan xusuus gaar buu ugu leeyahay waa dadka ugu firfircoonay maalinta aan Horn Africa ku soo biiray 2009 dhamaadkeeda ilaa maalinta Horn Africa albaabaha la iskugu dhuftay aynu wada joognay xasan jacayl. sidoo kale waxaa taariikhdii Abwaan Xasan Jacayl oo kooban warbaahinta si Axmed Mire oo adeer u ahaa abwaanka. taariikhdiisa oo kooban xasan jacayl wuxuu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb 1964 4 sano kadib xilligii Soomaaliya xornimada ay qaadatay. wuxuu ku soo barbaaray oo wuxuu ku soo bartay magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas oo ka soo shaqeeyay. shaqadiisa ugu badan waxay ahayd abwaannimada
inkastoo shaqooyin gargaar uu hayay sidaas la mid ah xilligii dambe dawladda Soomaaliya burburtay wuxuu abwaanku ku beelay qolada saxaafadda waxaan ka shaqeyn jiray idaacadda caanka ahayd Horn Africa xilligaasi oo markii dambe lagu dhibaateeyay ka bacdina oo ka soo cararay Allah u naxariistay Xasan Jacayl wuxuu adduunka uga tagay hadda 6 caruur ah maanta ayaan halkan ku joognaa oo taariikhdu ay ku beegan tahay 29 bisha 3 2012 guud ahaan bahda warbaahinta Soomaalida ee ku nool dalkani Kenya ayaa tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday abwaan Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Jacayl oo ahaa mid si weyn u jeclaayeen wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya Allah u naxariistay abwaan Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Jacayl ayaa xanuuno kala duwan ku hayay muddo ku dhan 2 sano magaalada Nairobi taasoo keentay in mid ka mid ah lugihiisa laga jaro isla markaana sababtay in xalay saqdi dhexe u geeriyoodo xanuunadii uu la ildarnaa in muddo ah. Cabdikariin Xuseen Gutaale, S24 TV, magaalada Nairobi.